Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada English Center. Maanta waxaan ka hadli doonaa law of sines iyo law of cosines. Sidaan ognahay markii aan isticmaalayno parallelogram law, waxaan qasab ah inaan isticmaalno trigonometric methodska ay ka mid yihiin law of sines iyo law of cosines. Muuqaalkeena maanta waxaan uga hadli doonaa inaan sharaxaad guud ka bixino law of sines iyo law of cosines, sidoo kalena goormaan isticmaalayaa ama u baahanahay inaan isticmaalo law of sines iyo law of cosines. Sidoo kalena waxaan ka bixin doonaa labadooda mid walba ka mid ah example. Okay, waxaan ku hormaraynaa law of sines. Aan dhahno waxaan haysanaa triangle ayaan haysanaa. Triangle-kan saddexdiisa dhinac oo saddexdiisa angle waxaan u qaadanaynaa xarfaha kabitaalka ah. Sideskiisa oo dhinacyada ahna waxaan u qaadanaynaa xarfaha oo small letterska ah. Okay, angle-kan waxaan leenahay waa angle A, angle B iyo angle C. Angle C angle C capital Y. Angleska waxaan u qaadanay xarfaha waaweynka. Sideskana waxaan u qaadanaynaa xarfaha yaryarka. Angle A corresponded waxaa la sidekan dhinacan ayaa waxaa inoo noqonayaa side A. Okay, angle B waxaa corresponded la ah dhinacan oo kasoo horjeeda. Waxaan leenahay side B. Angle C na waxaa kasoo horjeeda dhinacan oo waxaan leenahay side C. Xarfahani oo small letterska waxay inoogu taagan yihiin sideska. Xarfaha oo maxaa lahaay capital letterskana waxay inoogu taagan yihiin waa angleska. Triangle-kani saddexdiisa angle oo angle A oo lagu daray angle B oo lagu daray angle C, waxaan ognahay markii triangle la joogo inay la mid yihiin 180. Angle A lagu daray angle B lagu daray angle C waxa ay la mid tahay 180 degree ayay wala mid tahay. Waa maxay marka qaacidada la isticmaalayo markii law of sine la joogo? Law of sines waxaa la isticmaalaa angle side A oo loo qaybshay sin angle A waxa ay la mid tahay side B oo loo qaybshay sin angle B waxa ay la sii mid tahay side C oo loo qaybshay sin angle C. Qaacidadani waxaa loo yaqaanaa qaacidada uu iska leeyahay law of sines. Qaacidadan waa qaacidada u isticmaali doono law of sine. Okay, goormee ayaan u baahanahay ama sidee ayaan ku ogaanayaa inaan u baahanahay inaan isticmaalo law of sines? Sidee ayaan ku ogaanayaa inaan u baahanahay inaan isticmaalo law of cosines? Okay, law of sines aan ku hormarno marka. Law of sines markii la joogo laba marba waa la isticmaalaa. Markii aan haysano angle iyo side. Angle iyo side markii aan haysano, weliba sideka aan haysanona uu corresponded leeyahay labada angle aan haysto mid ka mid ah, markaasi waxaan isticmaalayaa law of sines. Meesha si fiican u fiiriya. Haddii aan haysto laba angle, labadaas angle ka mid ah dhinaciisana aan haysto ama sidekiisa aan haysto, markaasi waxaan isticmaalayaa law of sines. Sidoo kale haddii aan haysto laba side haddii aan haysto, labadaas side angle ka mid ah haddii aan haysto angladooda, markaasina waxaan isticmaalayaa law of sines. Labada mar waxaan isticmaalaynaa law of sines. Okay, maadaama aad ogaanay xilligaan u baahanahay inaan isticmaalno law of sines, waxaan ku dabaqaynaa hal example. Okay, example-kani marka waxaan haysanaa angle A. Waxaa inoogu la mid yahay 60 degree. Sidoo kale waxaan haysanaa angle B oo isagana inoogu la mid ah 70 degree. Sidoo kale waxaan haysanaa labadan angle ee aan haysano sidedkooda hal side oo ka mid ah oo ah side A waxaanan haysanaa 8 inoo yahay. Marka xogtani aan sawirno markaan triangle-keeni aan ku dabaqano si aan wax iga maqan aan u ogaado. Okay, waxaan haysanaa angle A waxaan haystaa waa 60 degree ayaan haystaa. Okay, waxaa kaloo haystaa angle B oo ah 70 degree. Waxaa iga maqan angle C. Sidoo kale waxaan aqaanaa waan ogahay angle A waxaan haystaa side A aan dhiilahay. Side A waxaan haystaa 8 ayaan haystaa. Maadaama aan saddexdan ogahay, waxaan isticmaalaynaa law of sines ayaan isticmaalaynaa. Oo waxaan soo raadin doonaa angle C iyo side B ayaan soo raadin doonaa. Marka maadaama laba angle aan haysto,
waxaan hadaatana soo dhahnay angaliska oo triangle-ka markii kulli laisku wada dardaro waxa ay la mid yihiin 180. so waxaan dhahnay angle A lagu daray angle B oo lagu sii daray angle C waxa ay la mid tahay 180. so maadaama intaan ogahay waxaan soo heli karaa angle C. so angle C aan ku soo heli karaa marka sababta waxaan aqaanaa angle A iyo angle B iyo angle A ayaan aqaanaa labadooda la isku daray ayaan waxaan ka jaraynaa 180. so angle C waxay noogula mid tahay 180 laga jaray labadaan oo la isku daray angle A lagu daray angle B ayaa waxa ay wala mid ah angle C. so angle C waxay noola mid noqonaysaa 180 oo laga jaray angle A waxaan haysanaa 60 oo lagu daray angle B waxaan haystaa 70. so labadan haddii aan isku darno waxay inoo noqonaysaa 60 lagu daray 70 almost 130 inta jeclahay okay 130 ayaa inoo soo saartay. so angle C waxay la mid tahay 180 laga jaray 130. so haddii aan kala jarno waxaana soo baxayo 50. so 180 laga jaray 130 waxayna soo baxayso waa 50 degree. so angle C wuxuu inoogu la mid yahay 50 degree ayuu inoogu la mid yahay 50 degree ayuu inoogu la mid yahay. so angle C waan soo helnay waxaan soo helnay 50 degree ayaan soo helnay. so waxa inaga maqan laakiin side B waa inaga maqan yahay side C na waa inaga maqan yahay. so waxaan isticmaalaynaa law of sines ayaan isticmaalaynaa. so waxa aan leenahay side B oo loo qaybshay sin angle B waxay noogula mid tahay sideka aan haysano oo ah side A oo loo qaybshay sin angle A ayaan leenahay. so side B unknown waaye laakiin waxaan aqaanaa angle-kiisa waan aqaanaa sin B waxaan haysanaa angle B waxaan haysanaa 70 ayaan haysanaa waxay noola mid tahay A waa aqaanaa waxa waaye waa 8 oo waxaan kaloo aqaanaa sin angle-kiisana waa aqaanaa waa 60 waaye. so maadaama aan maxaan lahayaa hadda aan arrange garaysanay waxaan isticmaalaynaa cross multiplication ayaan isticmaalaynaa oo waxaan iskugu dhufanaynaa sin 8 waxaa ku dhufanaynaa sin 70 sidoo kalena equal to ayaan leenahay B waxaan ku dhufanaynaa sin 60. so cross multiplication-ka ayaan isticmaalaynaa 8 lagu dhuftay sin 70 waxay noola mid noqon doontaa B lagu dhuftay sin 60. so aniga waxaan u baahanahay inaan B qiimaheeda soo helo. so meel walba waxaan iskaga qaybinayaa sin 60 ayaan u qaybinaynaa meel walba waxaan u qaybinaynaa sin 60. so almost sin 60 waa isla baxayaan. B waxay noogula mid noqon doontaa 8 lagu dhuftay sin 70 oo loo qaybshay sin 60 ayay noogula mid noqon doontaa. intaan waxay nooga soo baxo waxay noogula mid noqon doonaa maxaa la dhahayay side B. so waxaan haysanaa 8 lagu dhuftay sin 8 lagu dhuftay sin 70 oo loo qaybshay ayaan leenahay sin 60 waxaa inoo soo baxday almost waa 8.68 ayaa inoo soo baxday 8.68 ayaa waxaa inoo soo baxday side B ayaa inoo soo baxday. so qiimahani waxaa waaye waa side B oo aan soo saarnay 8.68. so haddeer waxaa inaga maqan side C. so side C isagana isla wadada haddeertaan ayaan isticmaali doonaa. waxaan leenahay side C oo loo qaybshay sin angle C waxay la mid tahay side A oo loo qaybshay sin angle A ayay inoogu la mid tahay. so side C waan raadinoonaa waa unknown-keena sin angle C waan haysanaa angle C waxaa inoo soo baxday waa 50 degree waaye ayuu inoogu la mid yahay. so is equal to leedahay side A waa aqaanaa waa 8 oo loo qaybshay sin angle-kiisa oo ah 60 ayaan leenahay. so isla sida haddeertaan oo kale cross multiplication ayaan isticmaalaynaa si aan usoo helno side C. so side C oo lagu dhuftay sin 60
waxay la mid tahay side c oo lagu dhiftay sin 60 waxay inoogu la mid tahay 8 oo lagu dhiftay sin 50 8 lagu dhiftay sin 50 ayaa inoogu la mid tahay. So c ayaan u baahanaa meel walba waxaan iskaga qaybinaynaa sin angle 60 ayaan iskaga qaybinaynaa sin angle 60 ayaan meel walba iskaga qaybinaynaa. So waxaa meeshaas inooga soo baxayo c inay inoogu la mid tahay 8 sin 50 oo loo qaybshay sin 60 ayaan leenahay sin 60. So qiimaha c inoogu soo baxa wuxuu inoo noqon doonaa side c. So aan calculatorkeena gashano waxaan leenahay 8 sin 50 8 lagu dhiftay sin 50 8 lagu dhiftay sin 50 oo loo qaybshay sin 60 ayaan leenahay sin 60. So waxaa inoo soo baxay 7.076 ayaa inoo soo baxay. So waxaa inoo soo baxay 7.076 ayaa inoo soo baxday. So qiimahanna wuxuu igugu taagan yahay waa side c ayuu igugu taagan yahay. Side c waxaa inoo soo baxday 7.076 ayaa inoo soo baxday. So law of sines waxa waaye waa example-kani intaas ayaan ku ekeenaynaa. Law of sines waxaan kusoo helnay sidaa ujeediin waa angleska iyo sideska ayaa lagu soo helaa. Weliba example-kan aan isticmaalayna waxa uu noqon doonaa waa angle side sababtoo ah waxaan haysanay angle 61 wuxuu ahaa known ayuu ahaa. waxaan kaloo haysanay iyo angle b labadan angle sideskoodana hal side oo kamid aan haysanay oo ah side a oo a da. Marka example-kan oo maxaan lahayay law of sines halkaas ayaan ugu bixinaa.